Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda sharafta leh waan idin salaamay adduunka meel walba aad ka joogtaan. Waxaan idin rajeynayaa insha Allah caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo. Waxyar waa mashquul ayaamahan iga raali noqda. Videogii aad iga soo heyseen waa kana alaabihii aan soo gaday ayaad rabteen inaad aragtaan sidaan u sharxay. Saan idin sheegay fadhiga qayb ka mid ah ayaan rabay inaan toosiyo. Marka waa kana sidaan ayuu kusoo baxay, sidaan ayaan ugu hagaajiyay. Haddii aad nagu cusub tahay walaal ha naga hilmaamin subscribe iyo like iyo share iyo comment. Intaasba dhiirigelin weyn ayay inoo tahay. Insha Allah waxaan rajeynayaa videoga inaad ka heshaan. Insha Allah sii daawada asxaabta waan idin sharxi doonaa wixii aan sameeyay iyo meelihii aan kasoo gaday alaabta. Hadda waxaan rabaa marka qaybtaani inaan wax yar aan hagaajiyo. Marka waxaan rabaa inaan ku hagaajiyo alaabihii yaraa aan soo gaday. Videogii kan ka horeeyay haddii aad daawanin soo daawo insha Allah waad arki doontaa alaabaha meelaan ka soo gadan waan idin sheegay. Marka hadda saad ogtihiin waxaa la gaaray xilliga qaboobaha oo mugdi waay inta badan iftiinka aad iyo aad ayuu u yaryahay. Gurigana ma jecla aniga mugdi in uu ii ahaado. Waxaan jeclahay mar walba guriga iftiin in uu leeyahay. Dahman khafiif ayaa markaa ii xiran. Dahmanka mugdiga dhan waa iska saaray kuwa khafiif ayaan xirtay. Marka muraayadan waan isticmaali doonaa. Sababtaan u isticmaalayo muraayadan waxaa waayay guriga iftiin iyo nuur iyo dhalaal ayay siinaysaa. Markaad saad arkayseen muraayada waan tirtirayaa. Markaan tirtiro waan nadiifinayaa. Markaan nadiifiyo kadib ayaan alaabihii kale ayaan ag dhigi doonaa insha Allah. Ila socda asxaabta. maadaama marka hadda xilligii qaboobihii la gaaray waxaa la iskaaga baahan yahay bustooyin inay diyaar ku ahaadaan qabowga markuu soo dhaco aad ku hugsatid. Marka saladaani ayaan isticmaali doonaa. Marka salada si aysan u ekaanin salad faaruq ah hoos waxaan ka geliyay busto kale ayaan ka geliyay. 2 barkin waan isticmaalayaa. Waxaan rabaa 2 barkin waan ku buuxinayaa marabi salada firfiraaq inay iga ekaato. Waxaan kaloo isticmaalayaa marka bustooyin kale ayaa jiraan dalbaday oo weli aanan ii imaanin. Waan sugayaa insha Allah markii ay imaadaan ayaan idin la wadaagi doonaa oo idin tusinayaa. Hadda marka waxaan sii isticmaalayaa bustahan yar oo cadka aad arkaysaan oo loogu talagalay xilliga qaboobaha iyo fadhiga kala markii la fadhiyo in la hugsado. Marka saladana ma sha Allah aad iyo aad ayay ii cajabisay. Salad weyn waayo wax walbo ayuu ku deeqa. Cad iyo madow mariigmo saad arkayseen. aad iyo aad ayuu ii cajabiyay. Salada marka waxaan ag dhigayaa TV-ga agtiisa ayaan dhiganayaa qofkii markii u baahdo kala soo ula soo baxo. Ma sha Allah asxaabta waa kana wax weyn guriga ma aanan ka bedelin. Haddana ma sha Allah muraayada waxaan ku dhahay guriga qurux ayay u soo jeedaysaa. Dhalaal iyo nuur ayay ku soo kordhisay. Waa kaasa sidaan ayay ku soo baxday cagaarka inaba caadi ma ahan. Waxaan kasii jeclaan lahaa cagaar run inuu yahay laakiin insha Allah waa la iska gaari doonaa. Maadaama hadda ilmo yar ay ii joogaan waxaan ku dhahay iima suurta galayso laakiin cagaarka ma sha Allah guriga wuu qurxinayaa. Qurux ayuu u yeelayaa. Shumacyadii aan soo gadan waa kuwana waaweynkii. Labadan faynuus ayaan kala geliyay. Faynuuso kale ayaa ii soo socdo hadda aan sugayaa kuwan inaan bedelo meel kale aan dhig ayaan rabaa. Waxaad gadaal aad ka arkaysaan waa qadadii. Insha Allah asigana waan idin la wadaagi doonaa anigii oo toosinayo oo qurxinayo alaabi iyo waxaan dalbada ayaa iga maqan. Marka ma sha Allah waa tana muraayadii wallahi aad ayaan uga helay qurux iyo guriga ay ka dhigtay. muraayadba muraayaday kasii weyn tahay way kasii qurux badan tahay.
tan ayaan aniga aan haystay, wixii aan haystay guriga ayaana isticmaalay. marka maasha allah asxaabteyda, waxaan rajeynayaa inaad videogaad ka hesheen. wixii videoyaal kaleeto aad jeclaan laheedeen inaad aragtiin hoos waad iigu soo qori kartaan. mar walba waxaan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad ii daawataan, aad ii dhiirigelisaan. hooyo ayaa la iska yahay, waa la iska mashquulayaa. waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa dulqaadka aad ii muujisaan. in muddo waan ka maqnaay, xaalado jiro oogooda ayaan la maqnaay. insha allah laakiin waxaan rajeynayaa hadda kadib inaad ii arki doontaan iyo videoyadeyda. marka idinkana aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa asxaabteyda sharafta leh. wixii su-aalo aad qabtaan hoos waad iigu soo qori kartaan. insha allah intii awoodeydii karaankeyga ah waan idinkaaga jawaabayaa. waxaana rajeynayaa videogan inaad ka faa'iideysateen oo waxaan idinku soo kordhiyey. marka maasha allah guriga uma baahnid maxay ahayd wax badan inaad ka bedeshid mise wax weyn. wax yar aad kusoo kordhisid iyo meel yar oo wax yar aad ka bedeshid ayaa guriga dhan wuxuu noqonayaa guri cusub ayuu ku noqonayaa. marka mar walba alaabtii aad haysatid ayaa guriga ku quruxsanaysaa. alaab kale hadaa soo gadatid kuwii hore iskama tuureysid, meel ayaad iska dhigay si mar walbo muddo markii alaabtii aadan arkin waad u xiiseysaa. marka waa kana bustihiina halkan ayaan dhigtay. salada oo bustayaasha aan ugu talagalay maadaama xilli qaboobaha oo hadda lasoo galay. daahmankan waa kana daahman aad iyo aad u khafiif ah ayaan xirtay maadaama aanan rabin maadaama yacni mugdi oo hadda xilligii mugdigii la galayo oo waqtigii winterkii nasoo food leh. ma jecel marka guriga dhan wada mugdi inaan ka dhigo. maasha allah iftiinka aad iyo aad ayuu yacni muhiim u yahay. marka asxaabtii waa kana maasha allah intan ayaan jeclaysa maanta inaan idinla wadaago. aad iyo aadna waad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad ii daawateen. insha allah video kale oo xiise leh ayaan ku wada kulmi doonaa. intaas iyo kheyr ayaan idin dhaafay. asxaabteyda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.